وفدي horkacayo madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo muddo laba cisho ku sugnaa magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika iyadoo uu safarka madaxweynaha ku wehelinayeen ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka gaashaandhigga mudane Xuseen Carab Ciise wasiirka arrimaha dibadda Cabdullaahi Xaaji Xasan xoghaynta madaxweynaha la taliyaha madaxweynaha xagga sharciga xildhibaan ka tirsan dawladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale wafdigan uu madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya horkacayo ayaa intii uu socday kulankan ay la yeesheen jaaliyada Soomaalida magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ayaa khudbado kala duwan goobta ka soo jeediyay waxaana ugu horeyn ka hadlay madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya waxaana ku xigsaday wasiirka gaashaandhigga sidoo kale waxa isna goobta khudbad ka jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda ku meel gaarka Soomaaliya waxaana hadaladoodii kamid ahaa badan oo horaan loo guuleysanay maanta aan ku guuleysanay amniga oo horumar sameynaayo sida la socotiin ciidamada hadda waxay joogaan magaalada Qoy aan rajaynaynaa inay hore uga soo dhaqaaqaan waxaan la socotiin gobollo kale oo badan laga xoreeyay shabaab iyo qaacida kuwa badan lagu howlan yahay in laga xoreeyo insha Allah tabaaraka wa tacaala sidaas la mid ah waxaa la waday process siyaasadeed oo ah ujeedada in ku meel gaarka laga guuro oo loo guuro dawlad caadi oo rasmi waxay intahay sharaf iyo fursad weyn oo caawa aan hortiina soo istaago waa aan soo booqdo South Africa markii ugu horeysay aan imaado waxaan idin waday farxad ah inaan xiriir diblomaasiyadeed la sameeyno South Africa oo aad loo sugayay taasoo aan ku guuleysanay oo ay soo dhaweeyeen dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ku dhaqan South Africa iyo isagoo Soomaaliyeed oo wada caawa waxaan idin wadaa madaxweynihii jamhuuriyadda jawiga kulankani uu la qaatay madaxweynaha iyo wafdigii uu horkacay jaaliyada Soomaalida ee ku nool magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ayaa ku soo idlaaday jawi heer sare ah iyadoo ammaanka goobta uu kulankani ka socday aad loo adkeeyay Cabdinaasir Soomane TV-ga caalamiga Universal TV Johannesburg